qoraalkan kooban wuxuu filosoofkii iyo dheergaradkii Talyaaniga ahaa ee Antonio Gramsci January 1916 ku qoray majalladii Avanti. waxaa Ingiriisda aan ka Soomaaliyeeyay u turjumay Alberto Toscano. aroor kasta marka aan ku soo tooso cirka saxarka tiran waxaan dareemaa inay ii tahay xurashada sanad cusub oo sababtaan u necbahay maalinta sanadka cusub ee la inagu waajibiyay sidii ay tahay hubanti sugan ee noloshii iyo ruuxdii insaanka badeecad suuqa taala ka dhigaysa ee wadata is-xisaab xidh kama dambays ah xaddi sarreeya iyo miisaan dejin cusub oo maarayneed. maalmaha caynkan ayay waxay inaga siijiyaan in aynu dareenno socotayska nolosha iyo ruuxdeeda. waxaad is arkaysaa adiga oo ka fakeraya sanad iyo ka xiga sidii ay jirto hakasho dhaxaysa oo taariikh cusub bilaabmayso. waxaad dejisanaysaa qorshayaal kuwii kaa baaqdayna waad ka qoomoonaysaa sidaas baanad u wadaysaa. waxani waa iimaha ay xilliyadu guud ahaan leeyihiin. waxay sheegaan in isxigxigidda waqtigu ay taariikhda u tahay lafdhabar hagaag, laakiin waa in aynu xasuusanno in ay jiraan 4 ama 5 taariikhood oo kale oo asaasi ah oo cid kasta maanka ku hayso oo xeeladeeyay taariikhda. iyadoo qudhoodu waa sanadka cusub ee taariikhda Roomaanka ama waayadii dhexe ama waaga casriga ah. taariikhani waxay saldhigteen oo ku xididaysteen maankeena heer baanay ina gaarsiiyeen aynu u malaynayno in noloshuba Talyaaniga ka bilaabmatay sanadkii 752 ama sanadihii 1490 ama 1492 ay yihiin buuro uu insaanku fantay oo si degdeg ah uu u gaadhay caalam cusub iyo nolol hor leh. sidaas darteed xilligu wuxuu noqonayaa caqabad iyo darbi inaga hor istaaga in aynu fahanno in taariikhdu ay si joogto ah isugu qorayso sadarkeeda asaasiga ah ee aan isbedbedelayn si hakasho la'aan ah. sida marka shaleemada uu filimku kala go'o ee aynu daawano hakasho soo dhex gasha labada muuqaal ee iftiinkeedu indhadaraanta yahay. oo sababtaan u necbahay maalinta sanadka cusub waxaan rabaa in aroor kasta ay ii noqoto sanad cusub. dharaar kasta waxaan rabaa in aan naftayda isfahan la gaadho oo aan is-cusboonaysiiyo iyadoo aanay jirin maalin firaaqo ah oo wax kasta nasasho u baxayaan. aniga ayaa isu dooraya xilliyada firaaqadayda marka aan dareemo in aan ku qarqoomay culayskii nolosha ee aan u baahnahay in aan xayawaannimada soo yar tijaabiyo si aan dardar cusub uga soo dheefo. uma baahni edbin waqtiyaysan oo macnawi ah. waxaan rabaa in saacad kasta oo noloshayda ahi mid cusub ahaato haba ku xunaato kuwii ka horreeyey. uma baahni maalin dabaaldeg ah oo lagu jaangooyey jibbo wadareed oo ay tahay in aan la qaato dad qalaad oo aanay waxba isugu kayi jirin. haddii awowayaasheen iyo awowayaashood ay beri dabaaldegeen kuma qasbanin in aynu dabaaldegno. waxaasi waa yaqyaqsi. sababta kale oo aan hanti wadaagga u dhowray waayo wuxuu qashin qubka ku dari doonaa dhammaan taariikhaha aan ka turjumayn ruuxdeena iyo suuraysigeenna. haddii uu kuwo hor leh abuurana waa kuwo ugu yaraan aynu inagu leenahay, ma aha kuwa ay tahay in aynu duuduub ku liqno inagoo u aanaynayna inay yihiin dhaxal ay inooga tageen awowayaasheenii la-aadka ahaa.